madaxweynaha maamulka Khaatuma State mudane Professor Cali Khaliif Galayr ayaa maanta waxa uu socod ku maray wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada Buuhoodle gaar ahaan wadada laamiga ee dhexmarta Buuhoodle waxaana madaxweynuhu socodkiisa ku soo bilaabay hoteelka weyn ee Cabdigure Balaase ee ku yaala Buuhoodle isagoo socodkiisa ku tagay goolada Soweto oo haatan laga dhigay laami. madaxweyne Galayr ayaa waxa uu socod ku maray wadada biida ee magaalada Buuhoodle waxaana indhahaygu ay qabanayeen intii madaxweynuhu wadooyinka Buuhoodle maraya iyo waliba goobaha ganacsiga shacabweyne aad u fara badan oo taagnaa hareeraha wadada kuwaas oo madaxweynaha si weyn u soo dhaweynayay waxaana madaxweynaha socdaalkiisa ku weelanayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Khaatuma Axmed Maxamuud Doolaal wasiirka xogeenka madaxtooyada Rashiid Cawil Cabdi Hiirad iyo waliba wasiirro aad u fara badan xildhibaano ka tirsan maamulka golaha deegaanka Buuhoodle xildhibaano ka tirsan maamulka Khaatuma iyo waliba shacab aad u fara badan. madaxweyne Galayr ayaa waxa uu galay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Buuhoodle waxaana uu ganacsiga ku dhiirigeliyay inay ganacsigooda hore u sii wadaan waxaana uu markii dambe la hadlay warbaahinta waxaana aan weydiinay waxyaabaha maanta ku soo arkay magaalada Buuhoodle. Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha noolaato. kormeerka madaxweynuhu ku soo baxay dawladda ka mid tahay socod baa soo marteen magaaladii waa soo marteen meel walba tukaamadii goobaha ganacsiga maxaa isbedel maanta dee madaxweynuhu wuxuu soo indheyndeynayay magaalada waxaan soo maray sayladda waxaan soo maray sariibadda waxaan soo maray meherado badan oo ay ka mid yihiin carwooyinka ilaa oodaan ka soo noqonnay dee madaxweynuhu magaaladu soo indheyndeynayay wax walba inuu indhihiisa ku soo arkaan maanta ugu talagalay dee wuxuu madaxweynuhu ku darayana waa afjooga looma adeege basada markii koobaad labaad maaha saddexaad maaha afraad maaha shanaad maaha ee magaalada ku marto maanta maxaa dad badan baa soo aragtay carweyn baad gashay maxaad soo gadatay oo maxaa dadka u sheegaysaa ma ballanku ma ahayn inaan wax soo gatee suuqa inaan soo arko horta arigu muxuu joogaa عدونا هذا مركب ما يمر بلا ما نريه إنسان لما تشري مسي شوكته ري هو ثورد أود بشيء مسي شوكته إذا لقضي ما أعرف لكن ري بدن سريبته وخساركي غالبا فرحت وين بيتها أنا سواركم عاوسحي أنت بوا سومرني فرحت قارينا يتها مقالة أنا كلي لما الموضوع هو روابط تجي أجاس وها سوقا وابط تجي هذا أجاس الضمان تسي من بدنا وصومرنا تدكنا تدكن مقالة شوبا هنا خاتميهين عندها خاتم الدولة وخاتم الديدة ميا دركتها توم بحشليان سيدا حبشي دوري هذا توم بيورشك شجعنا بوهد لواسع يا واسع بوهد لواتال أركو وحي تهينا إيجاك شيء يو كمر خاتية فرحت وين بيتهاي وحنا ورجينا يا مقالة بوهد له برشبشية برواقو كوريتان ومقالة مقالة استاهشة وحولبا عاصمة هنا النقطة سنتر كأجوين أجاك كلامه ماشي كتال إلهي كدقي يا وحوين وقيمة بدن إن مدة كنول يا معمل كخاطبة أي كعنقبتان أو أي كنتم تنصدان مقالة سي كل اسم الهاي سي هروق مري الهاي مقالو ينبدن أجن متشران أو إيربورت له تدخل بستان أو له إميجريشن له أو له سوقك كان جامعات dadkuna wuxuu iyaga qabsaday waana intaas oo lagaga sii dhawaada nabad baan dadkan u rajaynayaa ما شاء الله صور هذا كله دومي كلام هذه سيدي بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوها ياسين خيري أنا عقاشة خاطمو كلها دقن خاطمو استياد صوماليا ما هو مالين تاريخية ومالين هذا فرحات بدن مدحويني خاطمو بروفيسور علي خليف قلير وبالشدة النوعية كلا دوان سوف في عنو صوبوغدي حافظها مقالة لو هدي لا يكون ماي خاتمة مقبور دوكسيو برود حلوس بيه دارود وهي بحضر عويش قلت عادة واسمنتهين باشا محمود إن البير ولالاتهين بير كاكو قادة
baholyowga qaran baa indhuhu ila basaase mar haddaan buluugla yarkoo biligla guudkeenna oo aan baarlamaan iyo ra'iis baawar lagu doortay oo aan dalkeennii burburay binada aasaasay bilaaadankii naga tegay baaska nagu dhaafay bulxankeena mar hadday maqleen bigilka yeedhaya wax kaloo la buunbuuriyaa ima bogsiiyaane in bishaaro loo helay markii beerka ka ogaada khaatuma guul maakhir laan guul maakhir iyo khaatuma guul macalayaashii aanoodii magaalada baanu kormeer ku soo maray sideedaba xanuunku wuu yimaadaa caafimaadkuna waa yimaadaa waxaa jirta in yaroo kanaaco oo la soo martay kanaacadii baanu dawaynaynay waxaan leenahay cudurkaaga la arag iyo caafimaadkaaga ha la arko aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa farxad noo ah annagoo dhammaan gobolka cayn iyadoo madaxweynihii maamulka khaatuma barasafar cali khaliif galeydh uu hor hogaaminayo aanu dhammaan suuqayndayneen ku soo maray waxaan bilownay socdaal magaalada suuqyada magaalada Buuhoodle oo aan soo indhaynay madaxweynuhu magaranaysaa horkacayo shacabka Buuhoodle dhammaan intay leekaayeen markii ay maqleen madaxweynuhu suuqa maraya way soo wada baxeen marka magaaladu boqolkiiba boqol waxa weeye waa khaatumo waxyaabaha kale ee laga sheekeeyay la yiraahdo magaalada ida kala joogtay iyo waa magaalo ujiye badan xog ma jiraan dadkana waa khaatumo shacabku waa khaatumo si u soo baxeen madaxweynuhu maanta meel walba uu soo maray aadi aadna waan ku faraxsanahay dad ugu dambeyntiina kormeerkan madaxweyne Professor Cali Khaliif Galeer maanta ka maray wadooyinka iyo suuqyada weyn ee gobolka Cayn ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan gobolka Cayn waxaana madaxweyne Galeer labadii weekba uu sameeyaa inuu booqdo magaalada Buuhoodle gaar ahaan goobaha ganacsiga isagoo shacabka ku dhiirigelinaya inay ganacsigooda hore u sii wataan وعلى عثمان سبحانه دكتور ورقة الفيش كعلم اسماعيل channel مقلب Buuhoodle